السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa maanta aan isugu keenayno doonayna ka hadallo dhowr arrimood oo kooban oo ay ugu horeyso barihii ugu dambeeyay waxyaabaha ku soo kordhayay siyaasaddeena arrimaha dibadda. mucda waxaan doonayna ka hadlaanaa ay tahay labadii bilood ee ugu dambeeyay dhowr arrimood oo siyaasaddeena arrimaha dibadda ku saabsan ayaa dhacay marka kuwaasaan doonaya inaan mulaaxadaad ka sameeyo haddii ilaahay raahdo insha Allah. waxaan la soconaa Nairobi in ay dhawaan uu ka dhacay shir ay soo qaban qaabisay hay'adda la yiraahdo Humanitarian Center for Humanitarian Dialogue oo ah NGO maxaan ku dhahdaa in Switzerland laga leeyahay laakiin Horn of Africa iyo meelo kale oo badan oo adduunka ahna ka shaqeeya. hadda aragteen warqadii baxday ee casuumadda dadka lagu casuumayay waxa Somaliland laga soo casuumay wasiiro ugu horeeyay wasiirka arrimaha dibadda halka dawladda Soomaaliya laga soo casuumay agaasimaha madaxtooyada iyo kalkaaliyaha agaasimaha madaxtooyada oo iyaguna markii dambe ka cudur daartay. arintaasi waxa ay muujinaysaa in siyaasadii arrimaha dibadda ee Somaliland NGO loo gacan geliyay si loogu naasnuujiyo oo mashaariic loogu qaato oo lacag looga sameeyo. arintaas oo masiirkii ummadda February isla sanadkan waxa isla Nairobi lagu qabtay oo isla organization kaasi uu qabtay shir uu ugu yeedhay in isugu keenayo bulshada rayidka ee Somaliland iyo Soomaaliya. 9 xubnood baa Somaliland ka tagay oo civil society-ga ciidogeed ma jirin waa la qarinayay shir qarsoodiye buu ahaa in siyaasadii Somaliland ay arrimaha dibadda ay NGO iyo tahriibiyaan runtii waa xaaladda maanta ay ku jirtay aynu marano siyaasaddeena arrimaha dibadda. waxa kale oo iyadana aynu la soconay inuu dhawaan madaxweynuhu tagay wadan yar oo faqiir oo ku yaala maxaan ku dhahdaa galbeedka Afrika oo maxaan ku dhahdaa Guinea la yiraahdo. way fiican tahay inaynu isku dayno inaynu adduunyada gaadhno inaynu wadamo badan tagno inaynu qadiyadeena u sharaxno oo aan ka iibino. laakiin tiise wax lala yaabo noqotay sida aynu u weyneynay arintaas aynu uga dhignay inaynu gaadhnay meel sare oo aynaan weligeyn gaadhin. waxaynu hilmaamsanahay oo aan ilowsanahay oo dawladda kulmiye waliba ilowsantahay oo madaxweynuhu ilowsan yahay in madaxweynihii Daahir Rayaale Kaahin uu la kulmay tiraba 7 maxaan ku dhahay head of state amaba madaxweyne. waxaan inagu imika ku mashquulaa oo wax weyn dadkeena looga dhigaa oo macno weyn loogu sameeyaa roog baana loo dhigay waana la soo dhaweeyay oo aan laakiin nuxur siyaasi ah oo la inoo sheegaya aanu jirin. laakiin madaxweyne Daahir Rayaale nuxur siyaasi buu ka gaaray kulanada barigaas uu sameeyay. wuxuu la kulmay madaxweynaha Senegal wuxuu la kulmay madaxweynaha Kenya wuxuu la kulmay madaxweynaha Rwanda wuxuu la kulmay madaxweynaha Tanzania wuxuu la kulmay madaxweynaha Ethiopia wuxuu la kulmay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Ethiopia. waxa uu gaarsiiyay 2005 in African Union ku arinteena uu ka hadlo. waayaan daro inuu intuu madaxweyne Muuse Biixi Guinea tago uu ka soo noqdo oo uu gaari madaxa kala baxo shacabkii caruurtii dumarka iyo dadkoo dhan suuqa la soo tubo oo la dabaal dago inagoo ogeyn cid aliyaale cid la soo kulmay. xaqiiqadan hayna waa inuu wasiir arrimaha dibadda la soo kulmay xataa madaxweynuhu inuu la soo kulmay naagaan ogeyn inuu waxa warka ugu weyn oo inoo sheegayna uu yahay in arrinteeni madaxweynaha wadankaasi uu sheegay inuu geyn doono oo kaga hadli doono in maxaan ku raahdaa African Union midowga Afrika week hore ayay shireen statement ka ay soo saareen meel Somaliland lagaga soo hadal qaaday iyo meel arrinta Somaliland lagaga hadlay ma jirto.
laakiin arrintaasi madaxweyne Rayaale ayaa gaadhay oo keenay 2005 waa 10 sanadood ka hor weey 2005 ayaa maxaan ku dhahdaa mise waa 14 sanadood 2005 ayuu maxaan ku African Union ku inoo soo diray mission ka 2005 ay inoo soo direen warbixin aad iyo aad u qiimo badan ayay Soomaaliland ka qoreen oo 6 bog maxaan ku dhahdaa ka kooban warbixintaasi waxa ay si fiican uga hadlaysaa dadkii ay la kulmeen dadku sida qadiyada Soomaaliland u arkaan safaradii ay ku tageen Berbera iyo Sheekh iyo meelaha kale waxaanay tala soo jeedin ku sameynayaan in African Union ku arinta Soomaaliland iyo Soomaaliya ay role ku yeeshaan oo ay galaan waa 2005 10 sanadood wax ka badan kadib ayuu inta madaxweynaheenu soo taagay oo la soo dhaweeyo shacabka dadka suuqa la soo tubay ayaa guusha laynoo sheegayana waxa weeye in maxaan ku dhahdaa African Union ka la geyn karo su'aasha marka aynu isweydiinayna waxa weeyaan ma dib baynu u noqonnay mise horeynu u soconaa siyaasadeena arrimaha dabadda halkii uu Daahir Rayaale gaarsiiyay 2010kii ma dib baynu uga noqonnay mise hore ayaynu uga soconaa laba sano imika madaxweyne Muuse jooga laba head of state buu la kulmay waxa weeyaan waa Ethiopia iyo maxaan ku dhahdaa Djibouti waynu eegi doonaa maxaan ku dhahdaa dadka kale hadii la yiraahdo mustaqbalka la kulmana laakiin tiisa in siyaasadeena arrimaha dabadda caadifad laga dhigo arinta muhiimka ah ee aanu aragnay in qalad weyn tahay waxa weeye siyaasadeena arrimaha dabadda caadifad laga dhigo waxaan xasuustaa 29kii wasiirkii arrimaha dabadda ee Soomaaliland ee waqtigaasi oo intuu Ingiriiska tagay soo noqday khayriyada Hargeysa khudbad weyn ka jeediyay dadkii oo dhan oo khayriyada jooga ayaa wuxuu yiri Soomaaliland maanta internetka la geliyay sacabkii iyo sawaxankii iyo buuqii dhacay maxaan ku dhahdaa ilaahay baa ogaa anigu goobta waan joogay yaani dadku waxay aad ugu riyaaqeen oo ay ugu farxeen in Soomaaliland internetka la geliyay fahamka internetka yara garashada internetka inaga markaas heerkeena soo joogay maantana fahamkeena cilaaqaadka caalamiga sida u shaqeeyaan baa yar sababtuna taa weeye maalintaasna internet baa la geliyay macna inoogu sameeynayay maantana roog baa meel la dhigay macnihii oo kale inoogu sameeynayso internet baa la geliyay roog baa la dhigay wax farqi oo u dhaxeeya substance wax siyaasada oo nuxura oo ay sheegi kartaan ama maanta dawladdu ay sheegi karto oo ay oran karto waxaasaanu heloon achieve gareynay ma jirto intaaba wufuud dalkeena way imanayeen waftigii ugu sareeyay yimi xilligii uu Daahir Rayaale joogay Janday Fraser bay ahayd wasiirkii Mareykanka Afrika u qaabilsanaa dad badan oo kale oo mas'uuliyiin way yimaadaan ambassador Manuel bay noo yimaadaan inaynu taa guul dadkeena iyo shacbigeena uga dhigno oo aynaan su'aalo adag isweydiinino inaan oranin halkaynu taaganahay hadii aanad dhaqaaqaaga xaqiiq ku salaynin hadii aanad shaqada aad qabanaysa inta caadifada ka deysa aanad xaqiiq iyo qorshe ku sameeynin runtii waxa weeyaan inaanad waliga ayaa laha meel aanad gaaraynin anigu labun baan markaa kala garan waay markan hab dhaqanka dawladda kulmiye aan aad iyo aad u eego waliba gaar ahaan siyaasadda arrimaha dabadda markay tahay inay han yar yihiin oo aanu hanba ku jirin iyo inay tan yar yihiin oo maxaan ku raadayay rooga la dhigay oo dawaqinayo inta ay qaadi karaan ay xamili karaan hadii madaafiic loo ridana waxaan maleynaynay gabigeena wax xagga kale inaga roglayeen ilaa state visitors-ka mararka qaar ba xataa madaafiic la isu ridaay in iyagoo maryaha dhigta ay nagu soo noqon lahaayeen ayaan filaya sida ka muuqata marka arinta kale iyaduna aad iyo aad ka muhiimka ah bariyahan oo dhanna aad ka soo noqonaysa waxa weeye laakiin gunteedii asalkeedu uu qorshe la'aan yahay waxa weeye arrimaha wada hadallada iyo arrimaha tacaamulka Soomaaliya sidee baynu Soomaaliya arrimaheeda uga jawaabayna ayaan taa dhaweyto wasiirka arrimaha dabadda Soomaaliya ayaa hadlay si isaga qiimo dhac ah buu ku hadlay oo isaga wasiir ahaan ceeb u ah buu ku hadlay
si dawladoodii Soomaalida qiimo dhac ku ah u hadlo inaga madaxweynaha iyo shan wasiir baa ayaa u jawaabay shacabka oo dhan baa la yiri soo baxa maxaan ku raahday aynu u jawaabnay inagu dawladda Soomaaliya markaynu ka hadlayno mar waxaan rahnaa waa dawlad taag daran oo daciif ah oo waxbayna ma yeeli karto mar waxaynu oran jirnay wuxuuda iyo waxa ay ka hadlayaan inaga inama khusayso wixii 2012 ku horreeyay hadaad aragto dadkeena siyaasiyiinta waxay oran jireen wax markasto arrimaha Soomaaliya laga hadlayo annaga nama khusayso oo maxaan ku raahday shaqo annaga noo taalama waxa kale oo ay oran jireen maxaan ku raahday inuu mar walba dhahnayno ku celcelinaa waa dawlad daciif ah oo taag daran ama daciif ha noqoto ama ha taag daraato laakiin tiisa dan bay naga dhaxaysa maadaama dani naga dhaxayso waxa inaga maqan ilaa hadda ee aynaan gaadhnayno u baahanay waxa weeye intaynu miiska fadhiisano oo aan si critical u hadallo inaan nidhaahno habkee baynu waajahnaa dagaal baynu go'aan ku qaadan karnaa wada hadal iyo mufaawadaad baynu go'aan ku qaadan karnaa wanaag iyo sulx baynu go'aan ku qaadan karnaa cay ceebayn baynu go'aan ku qaadan karnaa laakiin go'aankaynu qaadanay inaynu ku dhaganaano oo consistent u noqdo weey inaynu maalin nidhaahno wada hadalladii waabanu iska dayno oo ka baxno maalinta kalena intaynu soo taagno aynu nidhaahno maxaan ku raahday annagu wada hadalladaanu diyaar u nahay wasiiradeennii aynu intaynu 5-6 isdaba dirno la yiraahdo agaasimo yar baa ay la soo kulmayaan oo wasiirkeennii arrimaha dabaddu yiri annaga islaan caanale haday noo soo dirsadaan waa arnarkeena waan la kulmaynaa marna ay leeyihiin weedada hadalladii wixiiba waanu laalay waxay abuuraysaa dawaq iyo in maxaan ku raahdaa xataa adduunku ina fahmi waayo siyaasadeena Soomaaliya ku waajahan maxay tahay waa inaynu siyaasad cad oo qoran oo dadku garanayo oo annaguna aan dawladda ka caawin karno oo kula shaqeyn karno ay soo bandhigaan dadka ka doodsiiyaan iyagu dhexdooda ka doodaan dabadeedna dadka u sharaxaan oo ay maxaan ku raahday u soo bandhigaan intaan leenahay way noogno hawadeeni dawladda daciifka ah inuu ka hadlayna hawadeeni had cad bay halka la baray markii laga hadlay lahaa war hawadii khatar bay ku jirtaa aviation keeni in la wareego jawaabta dawladdu mar walba waxa ahayd kuma dhacaan kartida ma laha ya waa ninkii fulayga ahaa idhaana jabla maagan wasiirkeena arrimaha dawladdu imika markii ay dhamaatay la wareegeen wuxuu yiri dad badan baa arinta ka soo horjeedo inay sii soconayso u malayn maayo markii hore arinteenu maxay ahayd way taag darayeen oo ma qaadi karaan imika arinteenu maxay tahay waxa weeyaan dawladda badan baa arinta dad badan baa ka soo horjeedo ma sii socon karto waxaan sii socon karin qorshe la'aanta iyo indhala'aanta iyo iska socodka aynu inagu ku jirno ta aan sii socon karahayni taa weey ta aan sii socon karahayni waa hanyaraantan rooga aan la dawaqayno ta aan sii socon karayni waxa weeyaan waa tan yaraantan marka wasiir arrimaha dabadeedna qaabilo ummadoo dhan intaynu raahna soo baxa inaguna aynu gawaadhida qoorta kala soo baxayno ta aan sii socon karahayni taa weey aan meel leena gaarsiinahaynin meel aynaan ku tagi karahaynin arigii baynu isagana ognahay oo doodiisii wali maxaan ku dhahday taagan tahay wasiirkeennii xanaanada xooluhu intuu soo fadhiistay ayaa markuu ka hadlayay wuxuu inoo sheegay inaanay dawladdu wax roolaba ku lahayn wuxuu yiri Sacuudiga iyo ganacsato ayaa ka wada hadlaya marka la waxay jaaliyad baa ka wada hadlaysa mar kaliya ay nooma sheegin waxa ay dawladdu ka qabanayso iyo roolka ay dawladdu ka yeelanayso haddii maanta markabka la rogay haddii aan la roginba ari baa xataa barbara jooga maxaa laga yeelayaa maxaa dadka qorshow ah sheekadani way taagnaanaysaa sanadka dambe haday doonto soo noqonaysaa ma sidii aviation-ka ayaynu iyadana eegnaayo nidhahnaa ma soconayso arigu waa tareerka kaliya ama ganacsiga kaliya aynu adduunka si toos ah maxaan ku raahday ula sameyn jirnay way noognaho aqoonsiga wax fara badan baa inaga xidhan foreign direct investment inama siiso maxaan ku raahday dawlad ahaan budget subsidy inama siiso deyn ma access garayn karno ma qaadan karno waxa soo dhammaan waxyaabaha in aqoonsiga maxaan ku raahday ku xidhan marka inaynu is indhatirno oo aynu dadkeena caadifad ku bacrimino waxay u muuqataa in wadankan la doonayo inuu ragaado oo halka joogo qofkuna marka uu madaxweyne noqdo aad moodo himiladiisu inay ahayd inuu kursiga tago laakiin kursiga markuu tago wuxuu ku qabtay iyo wuxuu ku sameeyo meel ula taga aanu garanayn
ashqaraarka kursiga maxaan ku dhahday uu ku jiro waxa marka aan u baahanahay inaynu culayska saarno in qorshe la yeesho qorshe la'aan weyn oo baahsan baa jirta xaqiiqada aynu waajahno xaqiiqada aynaan diidi karahayn waxa weeye international legitimacy amaba sharciyadu waa laba mid waxa la dhahaa waa sharciyad daakhiliya waa inaad dhulkaagii haysato waa inaad dadkaagii maamulayso waa inaad xuduudahaagii joogto waa inaad maxaan ku dhahday kala dambeyn iyo law aan order meeshaadii ka joogo talabaad waxa weeyaan international legitimacy waxaynu Soomaaliya sababtaynu isugu maranay runtahay waxa weeye iyaga wali haysta dhulkii Soomaaliya la isku oran jiray international legitimacy-giisii iyaga wali haysta sidaynu uga soo furfuraynaa su'aasha aynaan waligeen si critical oo dhaba oo xaqiiqa aynaan isu weydiinin taa weeye xukuumadana taa aynu u baahanay inay is weydiisaa taa weeye madaxweynaha ugama baahnin maalin kasta inuu inoo sheego Soomaaliya cadawga ugama baahnin maalin kasta inuu inoo sheego farmaajo cadawga waxaynu ognahay inay jiritaankeenna diidan yihiin full stop maba qof jiritaankaaga diidan oo kula dawlad ma tihid wax halka ka sii dambeeya ma jiro intaasaynu ognahay in marka inta la inoogu celceliyaa macna badan inoo ma sameynayso macna badan waxa laakiin inoo sameynaya sidee baynu arintaasi uga dabaalanayna aqoonsigeeni dariiqeeyaynu u marayna la shaqeynteeni adduunka ayna la shaqeynayeen miyay sii yaraanaysaa mise way sii badanaysaa taanu baahanahay taa weey taa NGO ma xallin karo NGO iyo maxaan ku dhahay Center for Humanitarian Dialogue in mashaariic loogu fududeeyo ay mashaariic ku qaataan maxaan ku dhahdaa dawladdu meel kale oo badan bay dad mashaariic uga sameeyay arinta aqoonsiga yaani mashaariicaynin arinta aqoonsiga waa in la mashaariicaynin waa in la NGO aynin waa in aan la xaafadaynin waa in arinta aqoonsiga ay noqoto arin maxaan ku dhahdaa dadka reer Somaliland oo dhamma ay wada taagan yihiin ay ka wada shaqeynayaan ay diyaar u wada yihiin arinta kale ee labaad ee aan doonayay iyadana inaan wax yar oo kooban ka idhaahdo oo runtii iyaduna tan ku xidhan waxa weeye siyaasadeena arrimaha dabaddu kama madax banaanaan karta siyaasadeena arrimaha gudaha waxa gudaheena ka jira iyo waxa dabadeena la inaga arkay waa dabadda waxa ka soo baxaya waa reflection keeni waa muraayada hadaad soo taagto adiga ayuunba soo baxaya hadaad cawarantayna aad cawaran bad ka soo baxaysa hadaad maxaan ku dhahday dukurantayna aad dukuran bad ka soo baxaysa laakiin tiise sida adigu si ka duwan kuma eekaysiin karto maanta adduunka sidaynu uga eegnahay waa sidaynu halkan uga dhaqanay inuga macaan sidaynu halkan uga dhaqanaa waa maxay waa markii wadankeena labadii sano ee ugu dambeeyay intaas oo dagaal oo beela ka dhaxeeya ayaa ka dhacay bariga maanta Soomaaliland waxa ka taagan ee ka dhacay ee soo noqonaya waa cawradii Soomaaliland oo qaawan oo dadkii adduunka oo dhammaan ay daawanayaan waxa muraayada ka soo baxaya taa weey wasiirkii arinta xallin kari waayay oo intaas oo goor arinta ay soo noqotay waxa wax laga xishoodaa inuu madaxweynuhu ilaa hadda uu yahay xabiibkiisa koowaad iyo saaxiibkiisa koowaad waxay ahayd markii mar loo dulqaatay laba loo dulqaatay saddex loo dulqaatay in ugu yaraan si ay dadku u dareemaan in waxa dhacaya xukuumaddu ka xun tahay oo madaxweynuhu ka xun yahay si dadku ay u dareemaan in mas'uuliyadda cid qaadato cidii mas'uuliyadda qaadatayna markay ugu yartahay ay ku shaqo weydo waa dadka shakiga weyn maxaan ku raadey ku abuuraysa waxa bariga ka socda ujeedada ay xukuumaddu ka leedahay iyo sida ay wax u socdaan iyo sida ay tahay tashakiga ku abuuraysa taa weey kuwii hore waaba ka hadli jireen tan waaba ka aamuseenba hatta dadkii ku dhintay ma tacsiideeyeen dadkii ku dhintay hatta ma tacsiideeyeen ilaa maanta madaxweynaheena wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladda qof kamid ah ka hadlay oo si rasmi uga hadlay arrimaha bariga iyo waxay ka damacsan yihiin ma jiro laakiin tiisa mas'uuliyadda ay wada saareen waxa weeyaan ee madaxweynahana si gaar ah u si saaranay in arinta bariga nabadgelyo lagu xalliyo in dadka wax isdilay ee walaalaha ah ay arintooda si nabadgelyo ku xashadaan dad walaalaa weey meel la aan kala tagin weey maalin walba ay sarkaya meel kooda nool midna ma dhamaanayo
isku duruuf iyo isku nolol weey ciddii isku daraasay ka dambaysaba waa inaanay dhageysanay ay noloshoodii dadkoodii aakhiradoodii diintoodii islaamnimadooda ay u tudhaan madaxweynuhuna waa inuu mas'uuliyadda dareemo ciddii shaqadan lahayd ee ka soo bixi weyday ciddii shaqadan lahayd ee ka soo bixi weyday inuu tallaabada ku habboon ka qaado oo aynu aragno qofku markuu mas'uul yahay oo mas'uuliyad hayo damiir buu leeyahay hadduu arko inaanu shaqadii qaban karahayn oo uu daalan yahay habab inuu iska casilaya ayaa u qurux badan marar badanna anagu maxamed kaahin waa noo soo jeedinay inuu iska casilo xilkaas waa xil ku culus runta marka halkeeda maxaan ku dhahdaa loogu tago oo aanu kartideedii iyo farsamadeedii inuu leeyahay aanay ka muuqanin maadaama aanay ka muuqanin intii ceebo intan ka badan ay ka soo bixi lahaayeen oo qarankana ay ceebo iyo cawrooyin kale kaga soo bixi lahaayeen waxa habboon inuu ruqsaysto oo iscasilo hadduu isaga taasi ka iman weydo oo damiirkiisu isaga taafari waayo madaxweynahay waajib ku tahay inuu maxaan ku dhahdaa uga raaxeeyo oo uu shaqadaasi maxaan ku dhahdaa cid hanan karaysa oo reer Soomaaliland uu keeno oo uu ku bedelo waxa kale oo iyadana adduunku mar walba inuu la yaaban daawanaya madaxweyne arrimaheeni doorashooyinka oo iyaguna xaniban oo meel u dhaqaaqayaan iyo si ay u dhacayaan iyo aynaan ilaa hadda maxaan ku dhahdaa cid sheegi karta aanay jirin waa waxyaabaha ceebta weyn Soomaaliland ku ah madaxweynaheennina inuu tanaasulo inuu dadka dhageysto inuu dadka isu soo jiido waxaan filayaa malaad doqonnimo u yaqaan laakiin tanaasulku waa raganimo maanta madaxweynaha waxa laga rabaa inuu tanaasulo commission cusub oo 9 xubnood oo inoo dhiso si ay doorashadeenu ay hore ugu socoto oo ay u sii dhaqaaqdo arinta kale iyaduna taagan ay ogtihiin waa caburintii waa xarigii waxaas oo dhan maxaan ku dhahdaa waa waxa gudaheena ka dhacaya dabadda laga arkaayo suurtagalna noqon maysa intaynu halkan dhoobo walaaqano in markaynu dabadda u saarna ay dahab noqoto taasi marnaba suurtagal ma noqonayso in dadka la kiciyo oo caadifadooda la kiciyo oo marka 2-3 bilood la joogaba maxaan ku dhahdaa hiyigooda halkan intoo la gaarsiiyo ta laga dhaqaaqo taasina meel inoo wada meeso in meelina geeymayso dhalinyaradeenii baa shaqala dhibaatooyin fara badan baa wadankeena ka jira waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda gaar ahaan madaxweynaha waxaan u soo jeedinaynaa inuu ka shaqeeyo wadanka iyo dadkiisa sida u midayn lahaa waayo haddii aanay taasi imanin meel lama gaadhayo la kulanka wasiirka arrimaha dabadda geli waxa ka muhiimsan in arrinta khaatimo la dhameeyo waxa ka muhiimsan in arrinta bariga ka jirta ee kala la dhameeyo waxa ka muhiimsan in arrinta caara la dhameeyo waayo sababtoo ah taasaa nolosheenni si toos ah u khusaysa taasaa midnimadeenni si toos ah u khusaysa taasaa wada jirkeenni si toos ah u khusaysa taas iyo quruxdeeda ayaa adduunka inoo soo jiidi karta oo inoo keeni karta taasi taa weeyaan talabaad aan u soo jeedinna madaxweynaha waxa laga doonayaa qorshe cad maalin kasta kuma jiri karno arigeeniba halkan lagu haystaa maalin kasta kuma jiri karno aviation keeni bay doodi ka taagan tahay maalin kasta kuma jiri karno wafdi reer Soomaaliland oo booqday oo meel tagay baa la carqaladeeyay waxaynu u baahanahay qorshaha cad inta dadku bay ogyiin in intaas dawladda Soomaaliya ka dambaysan way ogyiin in inta dadka loo sheegaa macna sameyn mayso waxa macna sameynay sidaynu waajahaynaa ee aan caadifad ku dhisnayn ee xaqiiqo ah ee qorshe ah ee talaabo ah ee aan ka wada shaqeynaa ee shacabka Soomaaliland kulligiis wada taagan aad iyo aad baa mahadsantiin su'aasha koowaad waan soo dhaweynay safar kasto madaxweynuhu meel u baxna waan soo dhaweynaa anigu bay markaa hadalkayga waxaan ku daray way wanaagsan tahay inaynu cid kasta gaarno aynu gaari karno waxaan hadda anigu dhaliilaya waa natiijadii safarka way taasna hore xisbigu maxaan ku dhahdaa ugamu hadal madaxweynaha in la soo dhaweeyay in maxaan ku dhahdaa la yiri maxaan ku dhahdaa shaqo fiican de safar wanaagsan buu ayuu ku tagay wax dhibaato ah ku jirta ma jirto laakiin waa maxaa ka dhashay waxyaabaha madaxweynuhu inoo sheegay oo yiri way ka dhalan doonaan waxa kamid ah in arrinkeena AU-da la geyn doono AU-di way shirtay arrinkeeni lama geynin
waa koowaad weeye talabaad in AU-da la geeyaa maxay muhiim u tahay 2005 baa la geeyay madaxweynuhu warbixinta hadaanu arag waxa fiican inuu akhriyo warbixin 6 page oo aad iyo aad u fiican ayay naga soo saareen waa dadkii madaxweyne rayaale ku dhaliili jiray maxaan ku raadayay inuu fadhiid yahay oo aan waxba qabanin marka halku madaxweyne rayaal 2005 joogay inuu maanta Muuse oo madaxweyne rayaale dhaliili jiray 2019 taagan yahay tan ka hadlaya taa weey laakiin ma ahayn marka laba arimood oo iska hor imanaya xaqiiqatan maaha arinta labaad waxa weeyaan annagu dawladda markay timaado arinta barigu mowqifkaygu cad yahay mar walbana waan ku celinaayo in dadkaasi dad walaalaa yihiin arintooda ay sulx ku dhameystaan maxaan ku raahdaa dawladdana maadaama iyagu ay dawladii yihiin ma doonayno in la qaato sawir ah inuu dawladda barbar yaacin arintani waa arin u baahan dawladnimo haddii dawladnimada ka baxdana waa arin u baahan dhaqan iyo odayaasheeni iyo maxaan ku raahdaa guurtidii marka si aanay sawir qaldan u bixinin maxaan ku raahdaa oo aanay shakiga asnamta u dhicin annagu waxaanu doonaynaa in wixii aanu dadka u sheeganaano halkan u marino iyadoo dharaar cadda oo dadkuna wada dhageysanayaan oo labada arkay harto processka dariiqeed soo martay arinta doorashadu waxaan aragnay anagu wax far badan oo reeraan ka tanaasulay waxa anagu aanu soo jeedinay laba arimood asalka waxa la isku hayaana waa labada arimood ta koowaad waxa ahayd in commissionka la kala diro 14 bilood 16 bilood ka hor meelahaas ahayd March 2000 maxaan ku raay 18 markii warqadaasi uu xisbigu qoray talabaadna waxa ahayd in la dhiso commission si siman loo qaybsado ama 7 ha ahaado ama 9 ha laga dhigo dadana xisbiyadu 3 ha u qaataan doodihii ugu dambeeyay labadii midna may dhicin maalintii ugu dambeysay ee la doodayay ee laga hadlayay dood waxay soo gaadhay in August commission cusub maxaan ku la sameeyay commission kani waqtigiisii uu dhameysanayaa uu madaxweynuhu taagay marka de mu ka tagin oo mu ka tanaasulin annagu waxaan niri 3 waxaan niri 3 wada hadal baan ka ogolaa in laga wada hadlo habka loo qaybsanayo in laga wada hadlo ayaanu ka ogolnay laakiin tiisade madaxweyne garnaqsanaya madaxweynenimadu waa in dadka kale ka weyn tahay waa in dadka kale u odayayso waa in haybadaadu shaqayso laakiin haddaad garnaqsanayso oo hadduu qof mahmaaha aadna doonayso inaad laba goor u mahmaahdo oo hadduu qof kalmad yiraahdo aadna doonayso inaad laba saddex kalmadood tiraahdo de maxaan ku raahdaay halkii laga xishoon jiray bay gaaraysaa marka taasi iyadu taa weeye madaxweynaha ayay waajibkiisii tahay inuu doorasho qabto taariikhdu hadhowto ma qori doonto wadani iyo kulmiya isku haystay arrimaha doorashada taariikhdu waxay qori doontaa in madaxweyne Muuse 5 sano joogo doorasho qaban kar waa sababtii cid hadhowto sheegi mayso iyo cidiisa haysatay sida wax u dhaceen marka isagay legacy-giisa iyo taariikhdiisa taa isagay tahay inuu ka fakaro isagay legitimacy-giisa ay maxaan ku raahdaa kor u qaadaysa dimuqraadiyadda Soomaaliland maanta adduunka kaftan bay ku noqotay inuu inoo fadhiyo baarlamaan 15 sanadood maxaan ku raahdaa sanka la sii galaya aynaan ogeyn sidii ay loo bedeli lahayn waa karti darro ay xukuumadda kulmiye leedahay intuu waqtigoodu dhacsanaaba waxa weeyaan kulmiye ayaa ilaa 2010 wadanka xukumayay marka kulmiye baarlamaan buu qaban kari waayay 10 sanadood xaqiiqadu taa weeyaan su'aasha labaad annagu mowqifkayga caare waan cadeynay wadankani jabhadu ma baahna wadankani wuxuu u baahan yahay nabadgelyo wuxuu u baahan yahay maxaan ku raahdaa wadajir wuxuu u baahan yahay
in la dhiso hay'adihii dawliga ah tawoodan kan u baahan yahay taaway caare maalintii arrimaha uu ka dhashay iyo waxa uu diidan yahay xukuumadda ay waajib ku tahay inuu la hadlo inay la hadasho inaanay qori iyo xabad sooran ku xaliyay ay xukuumaddu la hadasho ciidamadoodu ka tirsanaa nin militariga ah buu ahaa nin militariga waliba sumcad iyo magac iyo qiimo ku leh buu ahaa marka maadaama sidaa yahay waxa uu diidan yahay ee uu ka tagay xukuumaddu waa inay intay la hadasho oo ay la fadhiisato ay xal u raadisaa waajibkeeda laakiin in Soomaaliland ay isu jabhadayso xal maaha wax cid aqligoodu fiiyo ay taageeri kartaan qorshe horumarineed oo xukuumaddu leedahay oo meel yaalo oo meel ku qoran oo meel socdo aynu aragnay ma jiraba marka waa fake iyo maxaan ku raahday afka Ingiriisiga scapegoat baa la yiraahdaa qofku markuu maxaan ku raahday waxa isagu qaban kari waayo ee uu tamar beelo waa inuu arintiisii maxaan ku raahdaa tamar la'aantiisii wax uu ku qariyo waa inuu helaa marka tamar daradoodii ayay marna ku qarinayaan maxaan ku raahday cid baa lugtana jiidaysa annaga shaqadeeduba waa inaan dhaliishooda banaanka soo dhigno halkan soo saarno shaqadeedu annagu extra mile baabanu tagnaayo wax cunfiga mucaaradnimada ka baxsan baabanu marmar yeelaayo waxa wanaagsan ay qabtaan baan niraanaa waa wanaagsan oo waxa shaqo fiican bay qabteen laakiin ma hataas shaqadeedu waxa wanaagsan ay qabteen ma shaqadeedu waa inaanu scrutiny ku sameeyno oo aanu eegno maxaan ku raahday ceebta ay dhex fadhiyaan ee ku jirta dadkana aanu u soo bandhigno markaana astura annagu asturi karmayna iyagu haysa asturaan markeeda iman doontaa laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan commissionka maanta jooga inaanu tamartii u doorasho ku qaban lahaa iyo sumcaddii iyo haybadii u doorasho ku qaban lahaa iyo sharciyadii u doorasho ku qaban lahaa aanu haysanin maadaama aanu sharciyadaasi haysanin oo maxaan ku raahday xisbi weyn oo qaran uu leeyahay kuguma kalsooni waaba common sense haddii imika aniga iyo adigu aynu isqabano waan walaalkeen dhaana noo garqaad oo adigu tiraahdo de walaalkeen gar iima geli karo sababtu waxay doontaa ha noqotee in raahdo ma aniga kanun ba garteeda galaya de waa laf qurun ba ku jira